wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii Salman Show waxaan toddobaadkan xooga ku saari doonaa ama kaga hadli doonaa dalka Turkiga iyo waliba Soomaalida sidaan ognahay sanadihii ugu dambeeyay aad ay u imaanayaan wadankan caqabado fara badan jiro dad fara badanna wadanka markay yimaadaan sidii la rabay ay u noqoto halka qaar ka kalena ay dhibaatooyin fara badan ay kaga kulmaan bal Sheekh Balya nala jooga maanta barnaamijka aan ku marti qaadnay oo wadankan muddo jooga isla markaan xoogogaal u ah arimo fara badan kana mid ah culimada Soomaaliyeed ee wadankan ku nool Sheekh Bal markuu ugu horeyso soo dhawo jazakallahu khairan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa dhawahay jamaa wadankan Turkiga gaar ahaan Istanbul markaan ka hadlayno Ankara waa meelaha ugu badan ee dadka Soomaalidu ay degaan imaanshahooda wadankan iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ugu horeysa gaar ahaan familada markaan ka hadlayno بسم الله الرحمن الرحيم وبعد ودنكان تركيا وودمada Soomaalidu ay timaado ayuu kamid yahay siyaabo kala duwan oo timaado waxa uu timaadaa qaar wuxuu yimaadaa waxbarasho qaar wuxuu yimaadaa caafimaad iyo daaweyn qaarna wuxuu yimaadaa ganacsi qaarna diblomaasiyad qaarna dalxiis marka wadamada la yimaado kamid yahay qurbana markii la yimaado dhibkiisu iska leeyahay laakiin qoysaska Soomaaliyeed iyo ardaydii Soomaaliyeed iyo meel aadan aqoonin marka timaado tabcan caqabad waa laga kulmayaa caqabadka waxa ugu weyn luqadii Turkiga oo la aqoon iyo wadankan oo aan luqada Carabiga iyo Ingiriiska aan ku hadlin ama dadka ku hadlay ay aad u yar yihiin iyo Soomaalida oo reer guuraa ah oo marka ay meel tagayaan aan sahminin ama danta ay u tagayaan waa hebel baa u guuray u soo guur hebel yaadiis ku dan ma tihiin waxa laga yaabaa ninkaas inuu dan leedahay iyo Soomaalida oo iska hayiraaca intooda badan dhaqankii reer guuraaga ma ahna Soomaali wax ka sheegay laakiin dhaqankii reer guuraaga oo Soomaalida dabeecad ayaa wilna haysta waxa caqabadkaas kamida waxa inta badan la weydiiyaa midalan caruur yar yar baan haystaa meel diintii iyo luqadii Carabiga iyo Soomaaliga iyo waxbarashadii maadiga ahayd aan ka helo mehelaya intaas oo dhan meel aad ka helaysid adduunyada waa ka yartahay waxa laga yaabaa meelaha qaar inay xamar ku fiican tahay quraanka iyo afka barashadiisa iyo farbarashada inay Nairobi ku fiican tahay inay Qaahira iyo Egypt inay ku fiican tahay laga yaabaa meelahan inay ku fiican tahay dadka ardayda secondary-ga gaaray ama dadka doonaya in ay shaqo maaragtay sameeyaan inay ku fiican tahay laga yaabaa ganacsiga inay ku fiican tahay laga yaabaa Istanbul Ankara inay deegaan ku fiican tahay laga yaabaa marka waxa fiicnaan lahayd qofku ujeedadiisa marka hore inay caddahay kadibna meesha uu degayo uu fiiriyo way nagu yartahay qiimeynta noocaas wada dhibaatada ugu badan waxa tabanaya familada gaar ahaan waad dareemi kartaan Yurub iyo Mareykan iyo caruurta waa laga soo cararaya ilmihii dalkii hooyina lama geey karo marka waxyaalaha ugu badan la isweydiinaa waxay tahay Turkiga dadkii ku soo hayaamay imaanaya ma helaya caruurtii dugsi quraan ma loo helaya sidii Soomaaliya wax la baran jiray dugsiga caruurta aadi jireen ma la helaya iskuul wanaagsan ma la helaya dhibaatada jahwareerka ugu badan ee familada ama qoysaska Soomaalida haysto waa arintaasi way bal arintaas maxaa kala daa Turkiga waxbarashadu dawladdu waa bilaash waxbarasho private ah oo xoogay lacagana way jirtaan iyo iskuulaad luqadaha ajnabiga lagu dhigo xoogay lacag way jiraan dugsiyada quraanka way ka jiraan laakiin sidii anagu aynu naqaanay maaha sidii anagu aanu naqaanay ee farbarashadii iyo subax iyo galab la tagayay ama laga yaabo sida Ingiriiska oo kale aniga waan tagay aad bay jaaliyada Ingiriiska joogtay ay quraanka ugu dadaalaan maalin kasta waxay geeyaan dugsiyo quraan bay geeyaan meesha la yiraahdo East Africa oo kale iyada quraanka aad baa loogu dadaalaa sidaas oo kale hadii laga wado Turkiga kama jirto laakiin Ankara oo kale waa laga bilaabay halkan oo kale maraakiis hadda waa bilow wuu jira laakiin sidii anagu aynu u naqaanay ma aha waxa ugu muhiimsan ay Soomaalidu ay u baahan tahay anigu waxay la tahay in la helo xafiisyo dadku ay yimaadaan oo information ay ka helaan maxaa yeelay informationku waa muhiim wax laga yaabo inay 3 maalmood ka qaadan lahayd raadinteeda laga yaabo hadii aad xafiiskii xogta ka hay'ad u timaado inuu ku yiraahdo meesha iyo meeshaas mar sida iyo sidaas u noolo marka qaybta informationka Soomaaliya hadaynu nahay aad buu nooga dhimayay
marka misleeda hadii fikirkaaga marka lala barbar dhigo Soomaaliya waxaad sheegtay inaysan sidii Soomaaliya oo kale inaysan ahayn oo iskuuladii farbarashadii iyo la tagay suuxii doorkii la imaanay galabkeeda la tagay iskuulada ama dugsiyada ka furan wadanka la dhigo ma shanta xilliya la dhigtaa ma maalmo qoraa la tagaa maalinta imise jiro ardayga cunuga la geyn karaa waxyaalaha ugu badan ee jawraarka ka jiran taasna waa qayb ay ka tahay waa run xogta anigu aan hadda aan hay anaga hadda mid baan ka furnay Ankara oo Sheekh Abu Talha uu mas'uul ka yahay iqra daar baa la yiraahdaa mararka qaar caruur baa timaada shanta maalmood u baahan oo iskuul tagin oo si ku meel gaar ah wali iskuulaadkan bilaabin caruur weekendiga bas timaadana way jirtaa caruur galbihi yimaadana way jiraan marka qaabka loo dhigto waa qaab qof walba isaga uu eegayo markuu waqti hayana oo shanta maalmood ba keensanayo marka uu iskuul tagana oo sabtida iyo xadda uu imanayo waxa marka fiicnaan lahayd Soomaalidu mar walba Soomaalidu waxa ka dhiman midnimada iyo tawfiiqda ka dhiman hadii la heli lahaa iskuulaad hadii la heli lahaa wixii oo dhan ba laga helayo oo caruurta farbarashadii laga helayo af Soomaaliga ay ku dhiganayaan maadooyinka kale ee Ingiriiska iyo xisaabta iyo maadkiina ay ka helayaan oo ilmaha hadhow uusan jaha wareerin weekendigoodana ay iska ciyaaraan ilmuhu markuu yar yahay ciyaar buu u baahan yahay weekendigoodana ay iska ciyaaraan aad bay u fiicnaan lahayd midaas laakiin hadda mid waxa la hayo waxa weeye caruurta xageen geeya iyo halkan gee iyo hadii weyse la waayo tayammum way wax hadda ka jira misleeda marka waxa kaga fiican dalalka aad soo sheegto kale Masar iyo Nairobi Masar iyo Kenya iyo Soomaaliya oo kale inkastoo Soomaaliya amnigeed ay faamiladu ay ka deerinayaan misleeda marka Turkiga marka diinta marka la dhaho caruurta la keenay waxa kaga fursad fiican labadaas dal aan soo sheegay sida Masar Kenya iyo Soomaaliya waynu wada ognahay adaaba journalist oo ah amniga iyo maciishada un baa looga soo tagaya laakiin caruurta yar yar ubadka yar yar wax ma Soomaaliya ugu wanaagsan ma garanayo Masar iyo Kenya way nooga fiican yihiin Turkiga markii la yiraahdo xaalad hadda aan ku jirno way nooga fiican yihiin waxa yar Soomaali badan ayaa meesha degtay oo muddo dheerna joogtay Masar waxay uga sii duwan tahay iyadu wadan Carbeed oo luqadii Carabiga loo baahnaa shaariicad ka baranaysa iyo iskuulaadka iyo meel kasaad ka baranaysa marka Turkiga meel badan oo ku wanaagsan yahay meel badanna waa looga wanaagsan yahay waxay u baahan tahay qofka waxa uu baahay isu gaadhayna ma jirto boqolkiiba boqol waxaana ma uu jiro markaan familka hadda ka hadlayna waxa laga yaabaa ganacsiga oo kale fursadahaas oo kale iyo caafimaadka oo kale inuu ku wanaagsan yahay laga yaabaa laakiin marka laga hadlayo familada iyo caruurta wadamadaas aan sheegnay familka markay uu Turkiga imaanay raba inay soo degaan fursada taagan ama ay ka faa'iideysan karaan oo caruurta ay uga faa'iideyn karaan ayadana maxay tahay waa wadan Yurub ah wadan hormaray weeye waxbarasho quality Soomaaliya ka fiican uu ka hela laga yaabaa nolol macaan oo maaragtay iyo guriyo qurux badan iyo meel lagu ciyaaro qurux badan iyo moolal iyo yani uu helaya ama wixii ay ubadkiisa u baahnaayeen oo farbarashadii ah inuu san helin baa laga yaabaa وهاجا arrimaha iibsiga guryaha Sheekh Abu Talha waxyaalo far badan la isweydiinaya Sheekh Xambali waxyaalo badan la isweydiinaya oo kamid ah Soomaalida aad ay Turkiga guryo uga iibsanaysa hadafka waxyaalaha laga faa'iidayo maxay tahay maanta qofka muwaadinka Soomaaliyeed wadanka uu guri ka iibsado bari kama ma laga helay lacagtu ka baxshay lacag ka sii badan ma ka helaya ma laga yaabaa hoos u dhac inuu wixii ku yimaado faa'iidada ku jirta iibsiga guryahan badan la iibsanay Soomaalida iibsanaya maxay kula tahay waa su'aal fiican horta deegaanku waa muhiim guriga iyo gaadiidkuba waa muhiim markaad meel degan tahay meel aad degaysid مثلا gurigi wadaad ijaar ku jirto wala bari iga bax lacag badan ay ka gashay adoo caruurtii iyo wixiiba ay ka dayacan yihiin dibkan hayso Soomaali hadaan nahayn aabihi hooyadii ma wada socdaan waxa laga yaabaa inay hooyadii kaligeed ay caruurta ay timaado marka hadhow ka guur iyo rar iyo deposit cusub iyo kira cusub iyo guri raadin cusub xoogay waa wareer ba ku jira dadka guryaha ka iibsanaya horta waxa ugu horeeyay waa deegaan midda kale waxa lagu qaataa jinsiyada wadankan hadaad guri ama aad shirkad maal gashato $250,000 jinsiyada wadanka waad qaadanaysaa ma laga helayaa lacagtii la geliyay insha Allah waa laga helayaa biidnillaahi tabaaraka wa taala ilaa had si xaalku u socdo laakiin qofkii istithmaar ahaan u gashanaya ama maalgashi ahaan u gashanaya ficlan shirkadaha Soomaaliya ayaa ka faa'iido badan ama qaabka Afrika looga faa'iido faa'iidada waxa faa'iido loo yaqaan Soomaalidu hadda yani waxan ma jirto meesha kama ay jirto
laakiin waa laga helayaa lacagtii aad ku iibsay waa laga helayaa hal dhib oo kale jira wadan kasta markaad hanti gashanayso waxay ku xiran tahay dhaqaalihiisa iyo lacagtiisu hadday hoos u dhacdo wixii aad gelisayna way la dhacayaan dhibka ugu weyn ee hadda Turkiga naga haysta waxa weeye waxa loo yaqaano tadabdubka liiraha isbedelka liiraha marka dhib male haddii uu 10 gaar xitaa dhib male laakiin meesha ku ekaado laakiin adoo maanta guri iibsaday oo $200,000 ku iibsaday ayuu liirihii kor u kacayaa $200,000 waxay noqonayaan lacag badan haddana bil kadib waxaad arkaysaa isagoo ku noqday meeshiisa ku noqday ama lacag afar badan oo aad ku iibsatay dollar waxaan garanayaa nin $350,000 guri ku iibsaday liiruhu marka wuxuu joogay halkii dollar afar buu ahaa bil gudaheed buu wuxuu ku noqday 7 liiro ku noqday 700 buu ku noqday boqolkii dollar ama halkii dollar 7 liiro ku noqday marka qofka waad garanaysaa lacagtiisii oo dhan hantidiisii isbedel weyn baa ku dhacay wahagaag arrimaha caafimaadka oo kale dad badan la iska soo diray Soomaaliya waayeel kaliya socda arkaysa marka luqadii ma yaqaanaan waligood ma soo dhoofin caqabado fara badan dhankaas ka taagan inkastoo adigu dad fara badan aad caawisay oo aad lacag u aruursay ilaa hadartan kiis fara badan labada caruuraad wada dad kale hore u soo caawisay ajri xasanad ilaha ka siiyo maxaad ugu baaqaysaa dadka Soomaaliya ka imaanaya wadankan caafimaad ku imaanaya ama Yurub ka imaanaya ama meelaha kale ka imaanaya jahwareer fara badan aad taagan waxa la leeyahay isbitaalka hadii la tago dadkii waa lagu dhacayaa Turkiga wax dhacda dhaqaatiirtii isbitaalada dadka dulsaar ku sameeyay dad waxay leeyihiin turjumaanadii wax dhacay dadkan Soomaaliyeed ee jahwareerka haysta maxaad u sheegaysaa ugu horeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waa bulsho ahlu khayr runtii gacan furan dadkooda u danqada kiisas badan oo aad ka warhayso sida gabadhii xanuunsan jirtay oo kale laba wiil oo hadda wiil kale oo muadin ahaa oo Soomaali arrimihiisa laga soo gaarsiiyay si wanaagsan bay uga qayb qaateen waan ka mahad celinaynaa arintaas waxaase ka sii fiican in organization loo sameeyo in nidaam loo sameeyo maanta hadduu Jamaal kaliya hadlo ama Xambali uu hadlo ilaa intee dhibkii uu bato dhib sheegitaanka hadduu bato marka dambe waa laga daalayaa waxaan daawaday waraysi aad ka qaaday safiirka Soomaaliya safaaradda Soomaaliya ee Turkiga Ankara waraysigaas waraysi aad muhiim ah ila ahaa qodobo muhiim ah su'aalo muhiim ah aad weydiisay waraysiguna safiirkuna si wacan buu uga jawaabay aniga aragtidayda arrintan laakiin ah inay dad turjumaan ah wax dhibayaan dad isbitaallo private oo ii sheeg Turkiga ay dadka Soomaalida dhibayaan agensiyo Soomaaliya halkan isku xiran ay dadka ay dhacayaan waa arrin looga baahan yahay ninka journalistaha iyo warbaahinta guud ahaan inay si fiican u bidhaamiso laakiin waxa ila quban inay cadaalad inay ka samayso oo hadii uu mid iyo laba iyo saddex iyo afar hadii khaldan yihiin wadanka oo dhan ma wada khaldana hadii nin iyo laba iyo saddex la dhacayna Soomaaliya oo dhan lama wada dhicin aniga xogaal waxaan u ahay dad fara badan oo Turkiga isku daaweeyay si sharaf lana loo daaweeyay waxaan xusuustaa isbitaalka hadda agteena ku yaala shahiir haastana la yiraahdo dawladdu ay leedahay isbitaalka ugu weyn Yurub weeye Turkiguna ku faanaan hadda agteena ku yaala nin diblomaasi ah oo aan magaciisa sheegaynin baa noo yimid uu soo booqday saddex bari muu seexanin xamar intuu joogay hooyadii eedadii buu keenay meeshan oo xanuunsan soo jeedkii iyo safarkii iyo isku buuqay waan geynay way naga qabteen baasaboorkiisi markay arkeen waxay yiraahdeen ninka soo diblomaasi Soomaaliyeed ma aha bilaash baan ku daaweynaa hal shilna lagama qaaday toddoba bari bay hayeen koomuu galay xaalad adag buu galay si wanaagsan isagoo xaragoonayo qurux badan buu ka soo baxay marka dad fara badan oo wax loo qabtay baa jira laakiin ma rabna inaan sidii tafsiir ku jira leedahay hal ilaa aad way hadii toban way gaari karaan hadii rabaan dadka yaan la isku dirin anigu waxaan aad u xoojinayaa kelmadii safiirka uu su'aashaadii uga jawaabay waxa laga yaabaa Turkiga waxa ka sheegitaankiisa ajendayaal kale waad ogtiin anaga Soomaaliya waa meesha kaliya noo furan hadda lacag badan baa laga qaaday waa meesha kaliya noo furan marka in wax la hagaajiyo yaa wanaagsan laakiin in wadankii laga soo qaado meel tuuga ay isugu timid iyo meel dhacun ah ogowna qofka Turkiga anu waan daraaseeyay been baad sheegaysaa iyo waxbaad khiyaanaysaa labadaas sifo wax uga daran ma jirto laakiin haddana saa ay tahay dad xun way jiri karaan dadka in la iska qabto oo farta lagu fiiqo way tahay laakiin yaa laga dhigin meesha wadanka Turkiga oo dhan bahla galeen ama meel dhibaato ah aad baa dadka Soomaalida looga jecel yahay Turkiga anu intaan ka arkay wahagaag
waddankan dal horumaray waa Soomaaliya wax badan uu qabtay taa shaki kuma jiro Soomaalidana aad ay ugu soo guureysay sanadihii ugu dambeeyay maxay kula tahay waxyaalaha Soomaalidu ay ka faa'iidi karto ama ay ka baran karaan shacabka Turkiga iyo dawladooda shaqada aad baan ola yaabaa yani Turkida meel yar muqaxiyadaad fariisato shaah lagu keeno sonkortii markaad saa u furto shaah isticmaasho dhulka adoon dhigin ninkii shaqaalaha waa la dafayaa shaqada joogtada ah iyadoo oo roob da'ay waxaad arkaysaa ninkii jidka xaaqay uu jidka xaaqayo yaad arkaysaa roob uu da'ay oo marka qaar aad ka shakinayso muxuu ka faa'iidayaa xaaqida uu xaaqayo dadka Turkida ah waa dad saacado badan bay shaqeeyaan oo dheer aad u dheer laakiin wadankan bilicda san ee quruxda badan waxaad garanaysaa in shaqadaas joogtada ah iyo in qofka shaqadiisa lagu ixtiraamo wadanka lagu dhisay baad garanaysaa marka Soomaali anagu haddaan nahay aniga culimo badan baa ay timid dad fara badan oo waxa ay yimid runtii Soomaali magac ku leh muqaaxiyahan sharafta leh ee dadka akhyaarta alla geeyay markaad qofka soo dhaweeyso markaan geeyo waxaad arkaysaa ninkii muqaaxida iska lahaa oo 24 saac muqaaxidii taagan waxay ku soo dhacday hadduu Soomaali ahaan lahaa hanti intaas ma ahaan ma intuu afar naagood guursado afar dumar intuu guursado shaqaale badanna samaysto ayuu iska fariisan lahaa marka waxa weeye inaad hanti leedahay inaadan shaqaynin maaha shaqada waa inaan ka baranaa iyo al-itqaan fil amal shaqada in sideedii loo qabto in Turkiga laga barto waxaan kaloo laga baran karaa in mas'uuliyiinta wadanka la dhageysto Erdogan maanta markuu hadlo ama baarlamaanku uu wax soo saaro ama gobornarka magaalada gobortooraha magaalada uu amar soo jeediyo waxaad moodaa quraan in lagu akhriyo baad moodaa dhamaantood way fulinayaan ma u baahna in maaragtay booliis iyo maleeshiyaad kale iyo ay dadkii eegaan uma baahna marka ismaqalka iyo shaqada iyo nadaafada iyo kala dambeynta waxyaabahan isla Turkiga waa laga dayan karaa daljeelka ma ku jira aad iyo dalkooda waxa weeye siyaasadda marwar baan indheeyaa markii la yiraahdo Mareykan baa sidaa yiri kan ugu nacab Erdogan iyo wuxuu leeyahay Turkiga Soomaha Mareykan ma Turkiba ma soo Turki ma aha macnaha mu'ayidkooda iyo mucaaradkooda hal meel bay uga soo wada jeesanayaan markii laga hadlayo Turkinimada iyo qowmiyadda Turkiga markii laga hadlayo arrimaha sharciyada dalkan iqaamadaha oo kale marka ka hadlayno Soomaalidu iska fududeystaan ayagoo wixii fududeysana sharciga ka dhacay dhibaatooyin la kulmayaan dalka kaga baxto Wembley loo soo diraa bari dhaweyd waxaan u jeeday clip yar soo dhigtay groupka jaalida ee WhatsApp-ka fail dheer idinku ku jira ama adoo ku jira oo dhahay xaaladda kaga hadlaysay dhibaatooyinka marka sharciyada wadankan sida uu adag yahay Soomaalida qaabka u fududeysanayaan arinta maxaa kala ajnabi aad u badan baa wadanka jooga Suuriyaanka kaliya waxaan leeyahay 6 milyan bay ku soo dhaw yihiin dad fara badan baa yimaada marka wadankana xisbiga wadanka haystay waa wadamo xisbiye kale oo mucaarado ka soo horjeeda jira marka meelihii badnaa ee iqaamada qofka dalbanaya waa la xiray inta badan marka dhowr meelood baa laga soo reebay marka tii waxay keenaysaa inuu qofka muddo dheer ka hor iqaamada intayna ka dhicin 2 bilood ka hor inuu sii dalbado laakiin dad badan oo ajaaniba waxay sameynayaan last minute marka ugu dambayso ayay dalbanayaan kaas waxay arkaysaa faylal aad u dhaadheer baad arkaysaa anigu waan maalito clip yar baan ka duubay nin maxalli loo siyaasi aan u gudbiyay uu soo wacay uu iga mahad celiyay wuxuu ii sheegay hay'adii ay khuseysay iyo gobortoorihii gobolka iyo xitaa dawladda si toos in uu gudbiyay uu ii sheegay markiina ay wax badan inay ka qabanayaan marka iqaamadu waa waxyaabaha dadku ay aad ugu rafaadaan xagga aqoontii iyo xagga muddadii iyo dadku hadda meesha wadanka ku badan hadda waxaan arkay waxa la soo saaray qawaaniin cusub oo leeyahay in shirkaduhu iyagu ay ajaanibta ay u dhaxeeyaan ajaanibta iyo dawladda ay u dhaxeeyaan oo ay lacagna ku qaataan dadkan ay ka faa'iidaan dadkan ay u adeegaan arintaasna si culays u yiraahdaa وهاجاك dalkan waxa joogtaan xogaa joogtaan markii ugu horeysay aad timid ma jiraan caqabado aad la kulantay waastiri in wadankan la sii joogo maaha oo aad go'aansatay in isaga laabato dadka qaar waxa ku dhacdo markay yimaadaan caqabada la kulmaan dibna way meesha ka yimaado oo laabtaan ma jiraan caqabado la kulantay inta joogtay caqabado horta waa laabudda iyo wax turunturooyo waa laabudda laakiin anagu dadka waxaan ahay marka ay intuu wadanka caruurta keenin hanti gelinin qarash badan gelinin waan imid anaa imid waan sahmiyay si fiican baan yani aan ugu kuur galay
marka wixii aan intii aan daraasayay wax ka duwan oo soo baxay ma aanan arkin bal waxaa la oran karaa budgetkii iyo noloshii ilaa markaad soo degayso qoyskaada budgetkii ku bixilay waa inaad balan garaysaa markaas liiruhu wuxuu ahaa 4 buu ahaa halkii dollar 4 liiru ahaa marka annagana wixii ama ilaahay uu na soo geliyo ama dibadda naga soo galeen ama dalkeena naga soo galeen waa dollar marka boqolkii dollar baa noo barakowday gurihii ijaarkoodii aan ku talagashanaa $700 in bishii la bixiyo ayaa hadda $400 la bixiyaa maciishadii ma sha Allah weeye marka wax si wanaagsanaada ma ogiye ma aanan arag wax dhibaato ah oo nooga yimaada laakiin waxaa jira Jamaalow aqoon la'aantu caqabad ay keentaa jira maan dhaweyto aniga iyo xaaskayga halka baxnay wadan dibadda ahaanu tagnay tigir baan noo go'naa maana baaqan karin waxaan loo sheegay oo lagu yiri hadii aad hadda baxdaan qofku markuu baxayo waa inuu idnul khuruuj waa inuu idan ka soo qaataa fasaxanu ka soo qaataa booliska maan ka soo qaadanin waan baxnay waxa la yiri 300 liiro ganaxana bixiya maadaama iqaamada ay naga dhacday iqaamada naga dhacsanayd anaga marka waxaan u haysanaa baasaboor dhinshaan wadanay waxaan u haysanay in ku bixi karno ma yaali baasaboorka waa ku bixi kartaa waa ku gali kartaa laakiin markaad iqaamad qaadatay qawaaniinka dadka iqaamadda qaatay waa ku qabanaya marka waxa la yiri bil ma soo gali karto hadii aad baxay anaga marka ma noqon karno oo safarkaan u soconay kama noqon karno caruur baa naga joogto meeshan oo gabar qaraabo aga tagnay waxay sukaya qabatay in miya iska joognaa ma soo baaqana inaan baxnaa ayaa noo soo baxday markii cashuurta bixinay waanan karantiilkina waa qaadanay markaan soo noqonnay waxa la yiri wadanka ma gali kartaan waa iska soo noqonnay xoogeen adeeg baan sameeyay wadanka ma gali kartaan baa yiri aniga waad gali kartaa baa lagu leeyahay xaaskayga la yiri ma gali kartid waxa la yiri haddaad rabto in lagu musaafiriyo Denmark lacag la'aan adiga iyo xaaskaada adiga iyo zawjkaada lacag la'aan baa lagu diraya laakiin Soomaaliya haddaad rabto in waa inaad tigidh goosataa adoo markii dambe Ilaahay baa noo fududeeyay waa Ilaahay waa maanan waana la markii dambe waa noo naxariistay laakiin waxa igu soo dhacda dad fara badan waxa yaa soo waca hooyooyinka u badan waxay leeyihiin Turkigu maaragtay dad fiican ma aha dad naxariis la ma aha laba hooyo iyo ilmaheed iqaamo isla dalbaday baa ilmihiina la siinay hooyadin loo diiday waxa waa qaanuun way qaanuunkuna wuxuu leeyahay waa la raacay dabeeca iyo caatifo iyo naxariis iyo kuma shaqeeyo marka in qaanuunka la barto oo loo kurgalo ayaa aad wanaagsan oo nadawaad iyo koorsooyin laga bixi gaar ahaan hooyooyinka in la siiyo aad bay noogu fududaa inaan wax negative ka ah inaan faafino laakiin inta badan waxa laga yaabaa xaqiiqada markii loo kurgalo in anaga nagu soo noqonayso ugu dambeyntii su'aasha ugu dambaysa dhalinyaro fara badan wadankan imaanaysa Soomaaliya ka imaanaysa meel walba ka imaanaysa qaarkood waxba ma hayaan qaarka inta kalena wadanka way ka sii tahriibaan oo dhibaatooyin kala kulmaan badan iyo saxaraha iyo wabiga la gooynay Greegi u sii safar ayagoo xilli qaboon hadda ilaa dhowr qofooda ku dhimatay qaarkood xabsiye isaga jiraan kuwii la qabtana Soomaaliya dib loogu celiyaa dhalinyarada maxaa baa u jeedi lahayd wallahi dhalinyaradaas waxaan dhihi lahaa wadankiina iimaansada haddaad Turkiga iimaanaysaan ama aad meel kale tagaysaanna ujeeddo cad u taga laba qiso labadaba kula wadaago magaalada Odense ee wadanka Denmark anoo jooga ayaa waxaan arkay nin intaas dhibaatada sheegay soo maray markaas wuxuu igu yiri Soomaaliyana dhib iyo dagaal baan u joogo weynay magafa iyo Liibiya iyo balaayaan soo marnay bad baan soo marnay halkan markaan nimidna islaan cunsuriyada xisb cunsuriyadaas magaceeda intuu sheegay buu yiri islaantaasaan wadanka joogi laana marka waxaan ku leeyahay Soomaaliya haday xun tahay oo Liibiya xun tahay oo Saxaro xun yahay oo Turkiga xun tahay oo Denmark xun tahay armay fiican tahay inaad su'aal isweydiisin adiga wax ka qaldan yihiin marka meesha la tagayo janno ma aha dhibkeeday leedahay baraf xaaqideeday leedahay dhibaatadeeday leedahay marka intaadan hanti iyo guriyo iibin iyo hebelow $10,000 ii soo dir intaadan dhihin meesha aad u socoto daraasad rasmi ah ku samee waliba hadda cilmi baaris aad bay u sahlan tahay laakiin sawirra la soo diray iyo waa meel noocaas oo kala in la isaga tago hadhowna qofkii uu depression ku dhaco sax aniga ila ma aha waalidiinta Soomaaliyeed in badan baa ilmahooda iska soo diray iyagana waxay la tahay iyadan arintaas in dib loogu fiirsado waxaan ogahay anigu aan waliba gacan ka geystay caawinteeda waalidkii waa iska soo direen waxaan weydiiyay gabadha maxaa loo soo diray waxay dhan ma garanayno kharash baa ku baxay ma waxbay ka baranaysaa
ma caafimaad bay u timid maya xoogay dismoral bay noqotayoo waxaa weeye waxaan rabnay inay turkiga iska aado marka iska socodkaas dhibaatadiisuu leeyahay hadhowna waxaa laga yaabaa inuu qofkan shakhsiyadiisiiba ay calaamad su-aal inay fuushaa laga yaabaa oo laga yaabaa marka uu soomaaliya mar un ka baxan ay ku jirto laakiin markuu turkiga yimaado turkigana jawigeedu uu la qabsan waayo hadhow inuu depression niyad jab inuu ku dhacaa laga yaabaa sidaa daraaddeed arrimahaas aad ha looga fiirsado dhallinyaradana waxaan leeyahay dalkiina dhista oo ciidan u noqda oo laamaha amniga gala oo garsoorka hagaajiya turkiya iyo yurub iyo meel kasta waxaa ka hodansan soomaaliya laakiin maamul wanaag baa loo baahan yahay maamul wanaaguna iskama imanayo ciidamo ay dowlado shisheeyeen biilaana ma keenayo siyaasiyiin meelo kale mushaarka laga siiyana ma keenayaan shacbigu waa inuu dantiisa gartaa dhallinyaradu waa inay mustaqbalkeeda garataa wadankeeda waa in ay si wanaagsan ay uga fakartaa hadduu caqligu shaqaynayo wey ama haddaynu caqliga fasax geyno shacab soo fakaray iyo siyaasiyiin kaloo soo fakartay baa noo fakaraya waddankeennana waa la qaadan 140 milyan baa nagu hareeraysan bad ma ilaha inay baddeena qaataan bay rabaan haddii marka annaga aan fakari weyno dee iyagaa ka faa'iidaysanaya وهاجاج شيخ حنبل أيوها أو يقول رمي برامج كنا سلمان شو سجوا جوجا حافظ بشكشير اسطنبول وضدك قرب جوجت انتو دي بدن ايش دقيقين ايوه هذا كجمع علنا يا شيخ حنبلي وحن رجينا ان برامج نوعا وكلا وان كجا هلدون حارده ودن كان يقولوا عقبadaha jira inaan idin soo gudbin doono haduu eebay to ka horeysana waxa idin kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo aad u mahadsan